waxaa laga qisay mid ka mid ah qaadayaashii waagii hore jiray kaas oo lagu magacaabi jiray Sahraan wuxuuna ahaa qaadi xikmad Ilaahay siiyay waxaana soo qaadanay qaybtii koowaad haddana insha Allah waxaynu qaadanaynaa qaybtii labaad halkaad nagala socotiina waa hoyga qisooyinka ee Toosiya Channel fadlan subscribe labaad waxaan ku soo qaadanaynaa qiso cajiib aheed ee laga qoray qaadiga Sahraan waxaa dhacday hadda ka hor nin oday ah ayaa waxa uu soo safray magaalada si uu u adeegto waxa uu watay dameer magaaladii markii uu ka adeegtay adeegiisii dhameystayna waxa uu damcay dameerka inuu raro uu rari waayay dadkii meesha ka dhawaa ayuu ka codsaday in ay caawiyaan dadkii uu ka adeeganayay ayaa dameerkii u raray markii dameerkiisii loo raray ninkii odayga ahaa wuxuu u raacay dameerkiisii waxa uuna ka ambabaxay magaalada intuu meel dhex sii socday ayaa dameerkii la dhaxay raashinkiina oo ay ka daateen ninka odayga wuxuu soo dayay in uu raro dameerkii laakiin uu awoodi waayay in uu qaado hal loor oo ka mid ah loorarkii isagoo yaaban oo waxa uu sameeyay garan la ayaa nin dhalinyaro ah meeshii soo maray ninkii ayuu wuxuu ka codsaday in uu caawiyo dameerka uu raro ninkiina waxa uu yiraahday ma xumo in aan dameerka ku raro haddii aan dameerka ku raro maxaad i siinaysaa ninkii odayga ahaa ayaa waxa uu yiraahday waxba wiilkii waa uu ku socon weysay arrintii wuxuu yiraahday niyahow waxaan meesha ku yaallo haddii aan ku raro oo dameerka ku raro oo ku hagaajiyo si mar kale aysan kula dhicin maxaad i siinaysaa odaygiina wuxuu yiraahday waxba ku siin maayo ninkii dhalinyarada ahaana waxa uu odaygii u raray dameerkii sidii in uu yeelay in uusan waxba ka qaadanaynin ninkii odayga dameerkii markii loo raray ayuu wuxuu damcay in uu baxo laakiin wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ku dhagay oo wuxuu yiri xagee u socotaa ma xaqigii isiisid ninkii odayga wuxuu yiri xaq aan ku siinayo muxuu yahay sootii aan ku dhahay waxba kuma heli karo odaygiina wuxuu yiraahday waxbada nafteedii aa sheegaysay isii odayga aad ayuu u yaabay warniyo ma xanuunsan tahay seed u hadlaysaa wiilkiina wuxuu yiraahday wax jira male inta u dhaqaaqi maysid ee xaqigiisii xaqaaga waa maxay waxba waayo xaqigiisii soo idin wadeen maxay siinaysaa marka kale waxbadii nafteeda isii markii kala bixi waayeen ay waxay ku heshiiyeen in ay aadaan qaadigii si uu u kala saaro waxayna u ambabaxeen qaadigii markii loo tagay ayuu aad iyo aad u wareystay odaygii ayuu weydiiyey maxaad adiga wiilkan yarka isku haysatiin odaygii wuxuu ku jawaabay wiilkan waxaa ka imaaday magaalada dameerkii ayaa ila dhacay raashinkii iyo wixii wadana waa iga dhaceen waana saari kari waayay waxaan ka codsaday in uu i caawiyo wuxuu yiraahday maxaan ku siiyaa muxuu yiraahday maxaa i siinaysaa haddii aan ku caawiyo waxaan ku yiraahday waxba kadib markii uu i raray wuxuu yiraahday waxbadii nafteedii isii xagee aniga waxba ka keenayaa wiilkii ayaa lagu soo jeestay haye odayga warkiisa maxaa ka jiro waa run uu yiraahday aniga markii aan caawiyay wuxuu yiri waxba ku siin maayo waxba aniga waxbadii ayaan rabaa qaadigii ayaa cabaar aamusay waa uu fakaray waxa uu wacay odaygii wixii orodoo bax oo bannaanka aad oo dameerka naftiisii oraran soo xaray odaygiina wuxuu soo xareeyay dameerkii wiilkii ayaa waxaa lagu yiraahday dameerkan rarka ka deji oo dhulka dhig dameerkii rarkii ayuu ka dejiyay dhulkii ayuu dhigay kadib wuxuu yiraahday haddana rarka qaad oo dameerka saar wiilkii haddana rarkii raray oo dameerkii ayuu saaray markaas qaadiga wuxuu yiraahday meeshii aad dhigtay raashinkii saarnaa dameerka ee haddana ka qaatay hoostooda maxaa ka heshay markaas wuxuu yiraahday waxba wixii owkus waxbada raadinaysa halkaasi talaa ka qaado waxbada wiilkiina sidaas ayay xujadiisii ay ku faashilantay odaygiina uu ku ambabaxay asaga oo guulaysay halkaas ayay qaybteedii labaad insha Allah ay inoogu dhan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu